السلام عليكم. صعبتوا السلام يا أدبر إذا سلام يا سومالي ذا ملك استوجوغان فيديو غانا وحوصة يا سومالي ذا لكن يوغل هذا إن سلامو صاحبتي ذا كلا عن سومالي ذا هين. Allow me to extend my greeting to my non-Somali friends who are also watching this video. I'm very glad to share this wonderful video with you, but it may not concern about Somali people, but the video's purpose is to convey a message to Somali people. But I will try my level best to also make my YouTube global. Therefore, that is my greeting to all of my non-Somali friends. marka inta markaan uga soo tago salaanta aan u diray saaxiibadii kale aan Soomaalida ahayn caaway waxaan rabnaa ka hadalno abdu ilaahay kara laqo qodobo yar oo aan waqti ku soo koobeyno waxa la yiri Soomaalida waxay tiraahdaa nin hadal badiyay wax badan kuma darin nin yareyna wax ma hanbeen waa dadkii hore soo waxaan rabnaa ka hadalno sida qofka bini'aadanka ahi uu u hagaagsan karo gool horta qof hadaf la'aana ma socon karo hadafku waxa weeye gaariga sidiisaba ma socon karo iyadoo aan wado uusan haynin hadduu dhaho gaariga waxaan rabaa tago let's say from Muqdisho ilaa Afgooye wuxuu u baahan yahay wado u baahan yahay marka goolka lagu sheegayo wado waxa waaye qofku inuu gool leeyahay markaad gool yeelatid waxa jira wax la dhaho missionka waa wadadii ku geyn lahayd goolka marka sida qofka bini'aadanka gool ama aragti uu u samaysan karo uusan uga caajisi karin marna inaan ka hadalno qofka maalinka gool yeesho fariisto u dhaho meeshaan aan raba inaan gaaro okay way fiican tahay ma xumo qofka vision inuu leeyahay laakiin waxay tahay what are the macna strategic ama maxay tahay toolska maxaa la dhahaa waxyaabaha aad ku isticmaalaysid ee goolkaas ku geyn karo marka waxaan ka hadlaynaa 5 point very easy as ABCD marka waxa waayo ka hadlayna goal settingka wax la dhaho smart. You're very smart. You're looking very smart. Very smart that time. So that word was very deep down word لكن in business perspective حنو استعمالنا سيدا goalka qofka bini'aadanka uu set gareeyo. So let's start with ku bilowno smart waa kala qaadaynaa esta waxay u taagan tahay specific emta waxay u taagan tahay measurable eeda waxay u taagan tahay achievable arta waxay u taagan tahay realistic t the last but not the least waxay u taagan tahay time bound markaad goal set garaysanaysid first of all you have to be very specific waa in wixii oo dhan taad meel soo dhigatid aad tiraahday wal adiga maxaa rabtaa inaad gaartid what kind of goal noocee rabtaa inaad adiga gaartid goolkaasaan rabaa okay be specific waa inaad noqotaa marka gaar specific waxa lagu dhahaa Soomaaliga wax gaar ah inaadan wixii isku dhex yaacin wixii markaad alaabta kale waxay soo tahay tan aan ku bilaabaya horta aan tan focus ka saaro way ku fudaanay laakiin markaad isku dhex yaacisid waxba ma sameynaysid waqtigan oo doonaysa so you have to be as specific as possible. Secondly waxa waaye smart measurable goolkaada waa inuu ahaado wax la dhaho it should be quantifiable waa inuu macnahaas yahay measurable wax la xisaabin wax cadadooda ee la garanayo wixii goolkii let's say waxaan degsanay goolkan waxaa jira wax la dhaho short term goal iyo long term goal hadda waxaan ka hadlaynaa short term goal oo kale short term goal marka leedahay waxaa rabtaa inaad 2 sano hadda maanta 2019 aan ku jirnaa September so in 2021 September xageed joogi doontaa oo kale that is what we call short term goal marka
wixii measurable waa inay yihiin. waxyaabihii aad sameynaysa wadooyinkii waa in ay tahay aad garanaysid wadaba wadada kale ee loo maro. wax la dhaho English waxay dhahaan sequencing waa wax isdaba yaallo. finish this one and then come to another one. wixii fudud way ku fududaanaysaa. marka that's what we call measurable. It should be measurable, quantifiable, quantified. So you come to haduu imaanaysaa wax la dhaho smart, achievable. goalku waa inuu ahaado wax la gaari karo. It should be achievable. goalku waa inuu ahaado wax annaga aan gaari karno oo la dhaho waxaan horta ma gaari karnaa kan isid macnaha meeqaan ku gaari karnaa. okay waan gaari karnaa seen ku qaadanaysaa. marka it should be achievable. markii la gaarana waa in la garan karo goalka. last yiraahdee waxa ku xigo are realistic. dadka inta badan waxa dhibaatada u keeno oo hadafka ay rabaan ka haleeyo waa ereygan ugu imaanaya realistic. wixii waa inay ahaadaan wax macquul ah. haddii aad tiraahdo maanta adigoo zero ah oo you've got zero money, haddaad tirahdid berri waxaan rabaa inaan noqdo the owner of Hormuud, qofka Hormuud iska leh oo kale, waxay noqonaysaa hadal aad iska tiri laakiin aan macno sameynin. sababtoo wixii realistic maahan. qofku waa inuu realistic noqdo. goolka ama hadafka aad rabtid inaad gaartid waa inuu ahaato wax macquul ah. madaxweyne noqonaya, of course it's okay, waad noqon kartaa, laakiin how long will it take you to be the president of Somalia? marka waa inaad consider garayso, waa inaad macnaha aad waad noqon kartaa, laakiin caawa intaas oo kacdi bari ma dhigi kartid maxaa la jiray I'm going to be the president of Somalia. so because unrealistic way, so it should be realistic. goalkaada it should be realistic. waa inuu ahaado wax macquul ah oo caqliga ka dhaadhici karo. last but not the least waa time. wax walbo dunida yaalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sameeyay time. adigan bili aadanka ay hadda daawanayo as you watching time aad leedahay. xilli baad ku dhalatay, xilli baadna dhimanaysaa. wax walbo dunida aad ka qabatidna waa it is well calculated time and you have your own appointed time, and when your time comes then you will go. marka timeka wax project markii la sameynayo ama wax markii la sameynayo waa inuu time leeyahay. dowladda Soomaaliya time bay leedahay. waxaa la doortay madaxweynaha Soomaaliya 8 February 2017 wuxuu xilka ka dhamaanayaa 8 February 2021 maya ay raadeen labada sorry hilmaan hadalku ma jiro, which means there is a time for everything. projectiga it has got a time. wax walba time bay leeyihiin. marka hadaad tiraahdo ani goolaan gaaraya from bilowgaadii 2010 ilaa hadda alada goolaan gaaraya, goolkii you never achieved. time ma lihid waay. labo faa'iidada ay timeka leedahay waxay tahay timeka wuxuu ku saarayaa pressure. markii human resource managerka uu ku imaado and he tells you you've got 2 hours to finish, macnaha shaqooyin fara badan uu ku dhawaad yaad haysataa, then actually waxay kugu noqonaysaa waa timekaas baa wixii qabanaya. so you will end up doing each and everything. so our time it's not you. marka that is time. marka waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno that is how saas waxa waayo sida aan ku sadgaran karno goolkeena waa inuu ahaado smart. I'm sure haddii aad steps kan raacdi inuu noqonayo gool macquul inaad gaaraysid. laba waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo asna aan soo jaro anoo ku link garanayo smartka. waxaa jira nin la dhaho Maslow Abraham. way garanayaan dadka inta badan buugta akhristo academiga ama levelkooda uu degree gaaray. way garanayaan buug badan buu qoray oo buug aad u badan buu qoray. dad badan baa ka faa'iiday, Afrikaan badan baa ka faa'iiday, Europe dad European American ka faa'iiday, actually wax badan baa ka faa'iiday. marka wuxuu qoray barnaamij la dhaho hierarchy of needs. bini'aadanka wuxuu u baahan yahay baahiyooyinka uu u baahan yahay. marka
baahida bini'aadanku u baahan yahay iyo goolka, they are related, they are connected, they are different but they are connected. marka wuxuu u kala qaybiyey needska bini'aadanka 5 in simple term. haddii halka kale la waayo midka kale yani uu isku xiran yihiin. marka waxaan rabnaa nolosheena iyo goolka aan sadgaraysanayn inaan isku base garayno. waxay ka mid noqonaysaa ereygan ka hadlaya realistic. wuxuu inuu realistic noqdo. wuxuu kala qaybiyey wax la dhaho physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs and self actualization. marka physiological needs ka maxay tahay? markaad goal set garaynaysid horta aan ka hadalno physiological needs. physiological needs waxay tahay qofka inuu cunto heli karo, meel aad seexatid ma haysataa, waxaad cuntid ma haysataa, dhar aad gashatid ma haysataa, ilaahay kuma darnaadee cuntada, dharka, kabaha, meel aad seexatid, shelter. those are what we call physiological needs. qofka markuu intaas awoodo oo uu dhaho alla ilaahay maanta gurigaan haystaa, aan seexdo alxamdulillah, I have what to eat, waan haystaa waxaan cuno, I have what to wear, waan haystaa waxaan xirto, kii kalaan haystaa, caafimaad waan haystaa, caafimaadkii waa caadi. wuxuu ka fikirayaa, wuxuu imaanayaa step needska la dhaho safety needs. safety needska inta badan waa inta Afrikaanka dhibaatada ku haysata waa dadku iska helaan waxay cunaan. laakiin the major problem that all African countries are facing is safety needs, especially hadda maxaa la jiray East Africa, meeshaan joogno kala Soomaaliya. safety needs maxay tahay? qofku wuxuu u baahan yahay protection from any violence. wuxuu u baahan yahay qofka bini'aadanka subaxii markuu cunto intii uu helay u baahnaa, shaqada markuu aadayo waa inuu haysto ammaan. qofka sharaftiisa, cisigiisa, amnigiisa waa in uu maxaa la jiray uu nabad galo. muqdisho qofka markuu subaxii baxayo wuxuu ku baxayaa ayatul kursi, maasha Allah, dadku wayse qabaan, knowing the guy does not ma ogo qofka inuu kusoo laabanayo naf, which means waa macnaha their lives are at great risk. khatar weyn ay ku jirtaa. marka safety needska waa protection waayo, waa protection from law, protection from everything. waa inuu qofka yahay ammaan inuu helo. markaan aniga Ismaaciil helo safety, gurigayga cuntadeeda aan helo, wixiyga aan helo, security-ga aan helo, waxaan u baahnaanayaa needs kale oo la dhaho love and belonging. so what do I mean by those words? love refers to affection. love-ka waa in aad leedahay family, qoys ku jecel, xaas, ilmo, ilaahay kuma darnaadee group aad ka tirsan tahay, saaxiibo aad leedahay, ilaahay kuma darnaadee siyaasad, in adiga lagu danqado, in aad adiga maxaa la jiray hataa qof yani laga naxo. so you feel belonging, you know, that you are belonging to someone. hatta nimisa inaad adiga leedahay family, qaraabe, ehel. waa kii kala waay. qof walbo bini'aadan uu u baahan yahay love and belonging. wuu rabaa in la jeclaado, wax inuu jeclaado wuu rabaa, in laga taxadirana wuu rabaa. waa qodobka afraad. waa qodobka saddexaad. qodobka afraad maxay tahay? qodobka afraad waxaa waaye esteem needs. waxaan caawa dhan ka hadlaya waxay ku xiran tahay smart oo aan ka soo hadalnay how to set goals. so we are relating these things to the smart. marka esteem needs maxay tahay? waxaan u baahan inaan fahanno. waad u baahan tahay, anigu waan u baahanahay, labadeena waan u baahanahay. sababtoo dadka la sheegaya waa adiga daawanaya, aniga qof kale ma u jeedaa. adduunka intaas waay, waa anigu kula hadlayo iyo adiga daawanaya. waxaad u baahan tahay sharaf, cizi. waxaad u baahan tahay wax la dhaho, ninkan wuxuu u kala qaybiyey Masalo Ibrahim laba u kala qaybiyey. wuxuu kala qaybiyey esteemka
in dignity amaba wax la dhaho maxaa la dhihi jiray sharaf cizi in lagu ixtiraamo, in la xushmeeyo. You need to be respected, you need to be also respectful as well. wuxuu kaloo sheegay inuu u baahan yahay wax la dhaho for recognition. Balkan waa midka afraad waa. Remember we have talked about maxaa la jiray physiological cuntada iyo wixii waan ka hadalnay. Laba waxaan ka hadalnay safety-ga qofka bini'aadamka in la badbaadiyo noloshiisa. Saddex waxaan ka hadalnay qofka in uu dad leeyahay asagana la leeyahay, ilaahay kuma darnaada jacayl iyo xaas inuu yeesho. Afar waxaan ka hadalnaa sharafti marka ciziga waa bini'aadan needskooda, waa dadka bini'aadan waxay u baahan yihiin. kan marka esteemkan waxaa kaloo jira wax la dhaho recognition. siyaasiyiinta dadka hadda rag yar ee dhalinyaro ah aniga Ismaaciil xataa ka mid ahay, rag badan oo daawanaya way garanayaan, waxay marayaan stage-kii ahaa inay helaan recognition. Recognition-ka you need to be recognized by the society, you need to be respected by the society. dadkii yaa rabtaa inay ku bartaan siyaasadda inaad ka dhex muuqatid, in lagu dhaho hal hebel markaad maraysid ninkii Ismaaciil Xasan ahaa waa ninkaas meesha fariisatay, waa in waxaa rabtaa in laga yaqaano. meeshii aad tagtay waxaa rabtaa in salaan lagu taago oo hebel halkaas imaaday, maanta hebel maxaa ka hadlay. siyaasiyiinta inta badan ama even dadka business entrepreneurs oo kale, they are all fighting for recognition, so esteem why. marka last but not the least waxa waayo self actualization needs. so midkan waa mid aan caadi ahayn. kulli aniga kula hadlay Ismaaciila ma gaarin taas. you know we have to be honest with each other. adiga ma aqaan inaad gaartay, laakiin 99% waxaan isleeyahay I mean let's say 70% inaadan gaarin self actualization. self actualization waa marka qofka bini'aadanka uu gaaro meesha uu leeyahay cid bini'aadana uma baahnid waan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka ahayn. waa marka qofka riyadiisii from the beginning to the end uu gaaray. qofka markuu command gareyn karo wax walba oo kale. self actualization ko hal qof aan ku soo qaadan karaa hadda, xataa Barack Obama ama maxaa la dhihi jiray Trump kuma soo dhigi karo, laakiin waxaan ku soo qaadan karaa hal madaxweyne Afrikaana oo self actualization ka gaaray. waa nin la yiraahdo Yoweri Museveni, madaxweynaha Uganda. waxaan dhihi karaa waa madaxweynaha kaliya Afrikaana ee gaaray self actualization. marka self actualization waxay tahay qofka in riyadiisa uu ka dhameeyo haddana awood uu leeyahay wax kasta uu ku sameyn karo. madax badan oo Afrikaan madaxweynayaal waa yihiin dalka, laakiin awoodo badan ma lahan. xataa Mareykanka, madaxweynaha Mareykanka awood uma lahan inuu sameeyo go'aanada qaar ilaa uu Congress-ka la tashto oo Congress-ka laga soo approve gareeyo. marka intaasaan kusoo afjaraynaa. marka shantii hadda ugu dambeeyay aan ka hadlay oo needska ah, waad u baahan tahay inaad heshid sida goal u heshid. markaad physiological needskaada markaad heshid baad goal ka fikiri kartaa. xaqiiqda markaan ka hadalno goal aad garanaa for what purpose, yet you don't have the necessary needs. marka Ilaahay kuma darnaadee qodobada way iswada leeyihiin. waxaan jeclahay aad inay dadka uga faa'iideen. waxaan rabaa inaan summary ku sameeyo kastoo aan ku dheeraaday. waxaan ka hadalnay goalka si loo set gareeyo. smart baan ka hadalnay. maxaa waaye waa specific, waa gaar ahaan waxaad inay noqoto. m-ta waa measurable, e-da waa achievable, r-ta waa realistic, t-dana waa time, inuu wixii time noqdo. waxaan kaloo ka hadalnay physiological needs oo ah guriga, cuntada, dharka. waxaan ka hadalnay safety needs oo ah qofka in la difaaco sharaftiisa, cisigiisa iyo isaga nafsadiisa. waxaan kaloo ka hadalnay love and belonging, qofka inuu u baahan yahay reer inuu dhisto, in la jeclaado walaalo iyo ehel iyo qaraabo iyo intaasoo dhan markuu helo waxay ka mid noqonaysaa motivation. goolkaadii wuu kuu suurogelayaa markaad heshid dad garbahaada taagan ee adiga ku taageerayo, goolkaada waad gaaraysaa. waxaan ka hadalnay esteem oo dadka inta badan Soomaalida hadda ay wada marayaan. annaga marka guud ahaan waxaa hadda naga maqan safety.
laakiin waxaan u malaysaa soomaalida waxa kaliya ka maqan waa self actualizationka iyo safetyga. way haystaan physical needs most of them, they have got maxaa la dhihi jiray love, waa la jecel yahay dadkooda way haystaan, steamna way haystaan inkastoo ay u dagaalamayaan, laakiin labada weli midkood ugu muhiimsan waa safetyga. insha allah waxaan u rajeynayaa soomaalida in safety aan heli doono. aad baan idin salaamayaa, barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaad ka daawanayseen oo aad kala socoteen Ismaaciil Channel, waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Ismaaciil Xasan Arax walaalkiin. insha allah wixii aad markaas idinka haysaan oo kale qodob ah igu soo gudbiya commentiga. waxaan kaloo idinka codsanayaa intaana ka bixin inaad subscribe tirahdaan, aad share garaysaan. intaas waa mas'uuliyadda ku saaran. aniga mas'uuliyadda saaran waxay ahayd inaan idin gudbiyo wixii markaas ahay, adna mas'uuliyadda ku saaran waxay tahay inaad intaad ka faa'iiday qofka kale walaalka aad u gudbisid. aad baan idin salaamayaa, soo noqod wanaagsan. assalaamu calaykum.